kibirka isla weynanka iyo qabka qalbigaaga inuu ku jiro ama dhaqankaagaba uu ka mid yahay inaad xaqa diido oo iskala weynaato adoomada ilaahayna aad yastood xaqirto oo hoos u fiiriso tilmaanta haddaad ku tilmaaman tahayna wacdiga iyo waanadu ku anfici mayso quraankuna wax kugu biirin maayo allah quraanka kariimku ku leeyahay saasrifu an ayati alladina yatakabbaruna fil ard ayadahayga waxaan ka leexinayaa oo ka duwaya kuwa dhulka dhexdiisa isku kibriyo isla weyn wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha mar hadii lagu leexiyo ayad kasta hadii lagu tuso mar rumaynaysa jidka toosan qaadi maaya jidka xun markay arkaanna waa qaadayaan sababtu maxay tahay ayadahaygii bay beeniyeen buu alla yidhi waana moogaadeen oo wayba ka damba kama ay lahaba qaafiliin waay sidaas daraaddeed haddaad mutakabbirtaadu isla weyn tahay isla weynidaasi waxay ka hortagaysaa oo diidaysaa intifaacsiga waxaa ka mid ah jahliga iyo aqoon darrada inaadan fahmayninba waxa lagu leeyahay wuxuu quraanku ka hadlayaa maba fahmaysidba inaad fahantana umaba jeedidba marba haddaadan fahmaynin kuma saamaynayo rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi isagoo arrintaa tilmaamaya waidaa maa unzilat suurad markii la soo dejiyo qur'aanka ka mida nadara bacduhum ilaa bacdin way isfiirinayaan markaasaa waxay leeyihin hal yaraakum min axad war mid idinka mida ma arkay uma insarafuu kadibna way leexanayaan way gadoomayaan sarafa allahu quluubahum baa la yidhi tabaaraka wa tacaala kuwa quluubtooda alla leexiyey oo qur'aanka inay intifaacsadaan buu alla ka leexiyey iyo waanada iyo wacdiga iyo aayaadka maxaa loo leexiyey biannahum qawmun laa yafqahuun waa dadaan waxba fahmaynin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala waxba ma fahmayaan haddaadan marka fahmaynin shuruudiina waxaan ku soo sheegnay qur'aanka macnihiisa inaad fahanto ood u qasado ood waqti ku bixiso mawaanicdana waxaa ka mida jahliga inaad qur'aankaba jahli kaga sugan tahay ma intifaacsanaysid marka intifaaciisa sidii la rabay kuuma saamaynayo waxaa ka mid ah mawaanicda iyada annifaaq qalbiga inay munaafiqnimo kaaga jirto ilaahay tabaaraka wa tacaala qur'aankiisu waa nuur qur'aanku waa sharaf qur'aanku waa waxyigii rabbi waa hadalkiisii lama dhigo lamana geliyo intifaaciisa qalbi wasakhaysan oo nifaaq iyo shaki iyo kufri ku jiro la gelin maayo ma saamaynayo waa in nifaaqa laga saaro gaalnimadana laga saaro iimaanka lagu bedelo markaasuu qur'aanku anfacaya allah tabaaraka wa tacaala isagoo macnaha tilmaamaya wuxuu yidhi waidaa maa unzilat suurad markii la soo dejiyo faminhum man yaquulu ayukum zaadatu hadihi iimaana waxay dhahayaan war midkiinee bay u siyaadisay iimaan qur-aanka soo degay maanta yaa wax ka siyaadsaday allah wuxuu yidhi faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana dadka mu'miniinta iimaan kale iimaankoodiibay mid kale ugu siyaadinayaan aayaadku wa ama aladiina fii quluubihim marad kuwase quluubta ka jiran oo qalbigooda jiradu ku jirto munaafiqnimadu ku jirto fazaadathum rijsan ilaa rijsihim xumaantii qalbigooda ku jirtay unbay mid kale aayaadku ugu siyaadinayaan xumaantii unbaa mid kale ku sii siyaadsanaya bal u fiirso hada min cajaa'ibi alqur'aani alkariim daawadu cudurka waxay daawo ka tahay markii saalix uu yahay jirku inuu qaato laakiin marbay daawadiiba dadka dilaysaa oo qur'aankii daawada ahaa quluubta daaweyn lahaa cudurrada daaweyn lahaa ayagii cudur buu usii kordhinayaa sababtu waxa weeye waa halaysan waa khariban sidaas daraaddeed qalbigaaga hadday munaafiqnimo ku jirtana waanadii iyo wacdigii inaad intifaacsato ku diidaya waxaa ka mid ah azayq walmayl in qalbigaagu leexasha ku jirto maylkiiyo zayqa waxa la yidhaahdaa addoommada qaar ka mida rabbi tabaaraka wa tacaala wuu ku ciqaabaayo markii addoonka la kari waayo oo uu leexdo oo jidka toosan lagu kari waayo ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku ciqaabaa in isaga dhan qalbigiisa la leexiyo
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم markay leexdeen buu ilaahay quluubtoodii leexiyay dadka qaar waxa jira qalbigiisu leexsay oo si toosan oo wanaagsan ba wax uma fahmay meel xun buu wax ka raadiyaa saas daraadeed waa rabbigeen tabaaraka wa tacaala isagoo qolyaha tilmaamaya wuxuu yiri aayaadka rabbi tabaaraka wa tacaala quraanka kariimka baa laba loo qaybiyay aayaad muhkamaad ah iyo kuwa mutashaabihaad kuwa qalbigooda leexashadu ku jirtay laabku kuwaasi quraanka qaybtiisa muhkamkee banaanka yaala iska cad ma raacaya maxay raadinayaan mutashaabiha macnihiisu dhehgalshan yahay ayay raadinayaan oo kaasay dabagalgalayaan si ay fitna iyagoo raadinayaan ama ta'wiil raadinayaan sidaas daraadeed meel bay wax ka raadinayaan waxaan la garinaynin way raadinayaan oo waa fitna doon quraanka bay fitna ka raadinayaan aayaadkiisa cadcada iyo sharaa'icdiisii cadcadayd intay ka leexdaan bay kuwa mutashaabih oo macnahoodu qarsoon yahay ama aan la gaari karin bay wax ka dhex raadinayaan leesh لأن qalbigooda zayq iyo leexasha ku jirta hadii qalbigaaga marka zayq iyo leexasha ku jirtana quraanku ku anfici maayo mana intifaacsanis waxa kamida in qalbigaagu ingago qalbi ingeg inuu kugu dhaco qalbigaagu ma dabco mana cabsado mana jilco mana saamoobo wax kasta haday dhacaan aayaadku ugu waaweyn hadii arkaama lagu aqriyo saamayn male cudurkaasi qaswatul qalbiga haduu kugu dhacana isaguna waa maanic hor istaagaya in quraanku ku anfaco allah tabaaraka wa tacaala meelo aayaadkiisa kamid uu ku tilmaamay faqul nadribuhu bi ba'dha rabani israa'il allah tabaaraka wa tacaala aayad weyn buu hor keenay oo neefkii sa'i markii muxuu ahaayay amarkii la siiyay ee qaateen meydkii dhintay ayaa soo noolaado hortooda soo istaagay meyd lagu muransanaa yaa dilay ayaa ilaahay intuu soo nooliyo qabrigii ka soo saaray baa hortooda la keenay maxaa hortooda loo keenay inay kuwaana qaataan oo wax ku qaataan mase ku qaateen way su'aashu jawaabtu waa maya maxay aayadaas cad ee banaanka taala wax ugu qaadan waayeen sababtu waxa weeye quluubtooda ingegnayd waay qasad quluubukum min ba'di dhalik آيات ربي تبارك وتعالى ملك لو كمدا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم قسوة القلب هي أذيك قلبك كتشرا يسقون ومانع وحكم ذا إن آت تهيدتك هوض الراعة أو الراعة وحلي لذا وادتك النفط وضصيت عشاء وسكت وقرا ور ألا تيدي نفط إذا جعل ور ألا النعب نفط إذا جعل بل هوض إذا بل ود إذا نحوها داعب وأحد وحي نفتي سو أمرتو قاتا وحي ربي أمرين واتشبيا وحي نفتي سو ربطو يالا وحي ربي الريبين وادر درا حدودي سوات اللابا هداد هو الراعة هاي إلهي تبارك وتعالى دقهاga iyo aragaagana waa qufule waa daboolaya qalbigaagana waa la xidhaya waxba iska ka bedeli maayaan marka rabbi tabaaraka wa taala wuxuu ara'ayta man ittakhadha ilaha hawa ka waran midka wuxuu caabudayay ilaahi saba ka dhigtay naftiisu waxay rabtay inuu ilaaha ka dhigtay taasu raaca wa adallahu allah ala ilmin alla lumiyay ilmi iyo ogaan korkeed buu kulmiyay وجعل على قلبه على سمعه وقلبه وجعل على سمعه وبصره وجعل على سمعه وقلبه قلبيسا iyo maqalkiisa iyo araggiisa inta badawal baa la saaray faman yahdihi min ba'di allah ya hanuunin kara inta kadib waa qalbigi waa xidhan dhegti wax umari lahaana waa xidhanta ishii wax arki lahayd wax u gudbin lahaydna dabool baa saaran وريا هنون كرا أنت كذب واحد لما هنون كرا واحد معاك يعني وحوا الرعوة هوا الرع نمضوا مركا ومانع من الموانع كبرك سلوينك يقبك قلبك هذا إنه كتشره أما دقنك هذا وكمل يهي إن هذا حق الديده
iskala weynaato addoommada ilaahayna aad yastood xaqirto ood hoos u fiiriso tilmaanta haddaad ku tilmaaman tahayna wacdiga iyo waanadu ku anfici mayso qur-aankuna wax kugu biirin maayo allah qur-aanka kariimkuu ku leeyahay saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lard aayadahayga waxaan ka leexinayaa oon ka duwayaa kuwa dhulka dhexdiisa isku kibriyo isla weyn wain yaraw kulla aayatin laa yu'minuu biha mar haddii lagu leexiyo aayad kasta haddii lagu tuso ma rumaynaysa jidka toosan qaadi maayaan jidka xun markay arkaanna waa qaadayaan sababtu maxay tahay aayadahaygii bay beeniyeen buu alla yidhi waana moogaadeenoo wayba kadamba kama ay lahaba qaafiliin waay sidaas daraaddeed haddaad mutakabbir